halkani waa xog baahiyaha ciyaaraha waa channel cusub oo ugu talagalay in idinkugu soo gudbiyo warbixinadii ugu dambeeyay kubadda cagta caalamka. dhageysta ama daawada haddii ay ku qanciyeen warbixinadeena fadlan subscribe iyo like kanaalka wixii taliye tusaale ahna inuu ugu soo gudbiyo commentiga. mahadsanidin. kooxda Tottenham ayaa lagu soo warinayaa in ay wada hadal rasmi ah la furi doonto maalinta Isniinta ee nagu soo aadan kooxda PSG. waxa ayna doonayaan in ay garoonkooda ku soo celiyaan tababare Mauricio Pochettino oo 2 sano ka hor ka hayama naadiga reer London. Pochettino ayaa waqti wacan la qaatay Spurs intii u dhaxaysay 2014 iyo 2019 markaas oo maamulka kooxda ay shaqada ka ceeriyeen. xilli naadiga ay ku jirta kaalinta 14aad ee jadwalka Premier League kadib xilli ciyaareed ay dheeleen finalka Champions League oo ay Liverpool kaga guuleysatay. tababaraha kooxda Paris ayaa si weyn loola xiriiriyay mar kale shaqada Tottenham, waxaana wargeyska The Sun ee ka soo baxay England uu qabaa in maamulka kooxda ay wada hadal rasmi ah la furi doonaan dhigooda reer Faransa maalinta Isniinta. 49 jirka reer Argentine ayaa shaqada naadiga PSG la wareegay bilowga sanadkan, waxa uuna naadigan ku qaatay waqti isugu jira mid fiican iyo mid xunba. waqtiga yar ee uu ku sugnaa gigada Le Parc des Princes waxa uu naadigu u sahlay in ay ku guuleystaan French Super Cup iyo French Cup. waxa ay isku hungoobeen ku guuleysiga horyaalka Ligue 1 oo sanadkan loo caleemay saaray naadiga Lille iyo Champions League oo kooxda finalka taagan ee Manchester City ay ka reebtay sanadkan. tababaraha reer Argentine ayaa ka xumaaday qaabka naadiga France loo maamulo, waxaana wararka sheegayaan in ay isku dhaceen Leonardo oo ah directorka naadiga reer Faransa, waana sababta ugu weyn ee Pochettino oo albaabka ugu furay ku laabashada horyaalka Premier League. haddii tababarahan uu aqbalo shaqada Tottenham, waxa uu la hadli doonaa Harry Kane oo ah kabtanka xulka England, isagoo ka codsan doona inuu naadiga la sii joogo oo uusan ka dhaqaaqin. xidiga reer England oo sanadkan ku guuleystay kabaha dahabka ee goolaalinta Premier League ayaa saacad u sheegay in uu doonayo inuu isaga hayaamo Spurs si uu ugu guuleysto koobab, waxaana magacaabida Pochettino ay aaminsan yihiin maamulka kooxda in ay bedeli karto fikirka Harry Kane oo uu naadiga ku sii nagaan doono. haddii Harry Kane uu ku adkaysto ka tagista kooxda Tottenham, waxba uma dhibi doonto raadjooga tababarahoodii hore ee Mauricio Pochettino, waxaana warar soo baxaya ay sheegayaan in kooxda Tottenham ay horeba ka calaamadeysatay labada weeraryahan ee u kala dheelay kooxaha Aston Villa iyo Southampton, Oli Watkins iyo Danny Ings, in midkood ama labaduba ay bedel u noqdaan weeraryahanka reer England. weli iyadoo ay meel dhex marayso dabaaldega ku guuleysashadooda horyaalka Talyaaniga, kooxda kubadda cagta ee Inter ayaa dhexda ka istaagtay rajaxmo midii ugu weyneed. 10 sano kadib koobkoodii ugu horeeyay Scudetto ayay ku guuleysatay kooxda Nerazzurri, laakiin kuma filna midaasi inay kursigooda benjiga ay ku sii haystaan tababaraha reer Talyaaniga Antonio Conte oo maalinimadii Arbacada 3 maalin kadib ku guuleysigooda horyaalka u gudbiyay maamulka Inter warqadiisa iscasilaada tababara Conte ayaa waxaa ka sii yaabadnaatay sababta ku kaliftay inuu qaado go'aankaas. kooxda Inter oo sanadkii afraad oo toos ah u soo baxaysa horyaalka Europe Champions League ayaa bartamaha ka istaagtay dhaqaale la'aan aad u baahsan. lacag amaah oo gaaraysa 250 milyan oo pound oo ay kooxda reer Talyaani ka heshay shirkadda fadhigeeda yahay Mareykanka oo lagu magacaabo Oaktree Capital ayaa sanadkan u sahashay in ay hal ku istaagaan, laakiin ma aha mid ku filan Inter. kooxda madowga iyo buluuga ku dheesha ayaa u baahan in qasnadeeda ay ku shubto lacag gaaraysa 87 milyan oo pound oo ay tahay in ay ka heshay iibka ciyaartooydeeda, isla markaana ay hoos u dhigto gunada ay siisay xidigaheeda qiimo dhan 20%. macallinkii hore ee Juventus iyo Chelsea ayaa iska diiday qorshahaas, wuxuuna go'aansaday inuu isaga haro doonta Inter. su'aasha ayaa ah maxaa hadda dhacaya? luminta 51 jirkan reer Talyaani ayaa dhabarjab ku ah horumarka ay naadiga Inter ku talaabsatay muddada qaaban. Conte ayaa ah maskaxda ka dambeysay ku guuleysashada horyaalkooda iyo soo xirigelinta ciyaartooyda magaca leh ee labadii sano ee dambe kooxda ku soo biirayay. Inter ayaa u muuqata haatan in ay heshay macallinkii bedeli lahaa booska uu baneeyay Antonio Conte, waxa ayna heshiis la gaartay tababaraha naadiga ay ku hardamaan Talyaaniga Lazio Simone Inzaghi, ka oo aqbalay heshiis uu ku joogayo garoonka San Siro ilaa iyo sanadka 2023. Inter ayaa u baahan in ay iibiso ciyaartooy ka tirsan kooxdeeda si ay u hesho lacagta laga rabo sanadkan.
balse wararka ayaa sheegaya inay aqbali karto kooxda ka dhisan Milan in ay iibiso weeraryahankeeda reer Belgium ee Romelu Lukaku. Inter ayaa kaliya iibinta xidigii hore ee United ka heli karta dhammaan qarashaadka ay u baahan tahay, waana sababta la isla dhaxmarayo in ay diyaar u tahay iibkiisa kadib sanad wacan oo uu ku qaatay San Siro. Xidigan ayaa u dhaliyay kooxdiisa sanadkan in ka badan 30 gool, waana xilli ciyaareedkii labaad oo uu sidaas sameynayo. Luminta Romelu Lukaku ayaa dharbaaxa adag ku noqon doonta horay u socodka naadiga Inter, laakiin waxa ay yareyn kartaa ciyaartooyda ka bixi kara irideeda sanadkan. 27 jirkan ayaa lagu qiimeeyaa 77 milyan oo pound, halka mushaar ahaan uu sanadkii jeebka u gashta qiimo dhan 10 milyan oo pound. Lukaku ayaa xiriir wacan la lahaa macallinkii baxay, waxaana macquul ah in uu markale la midoobo Conte waa haddii macalinka reer Talyaani uu helo koox cusub waqtiga dhow. Laacibka kale oo ay macquul noqon karto in boorsooyinkiisa ka xirxirta naadiga ay Lautaro Martinez. Argentineskan ayaa lala xiriirinayaa xagaagii la soo dhaafay in uu qiimo aad u sareeyo ugu wareegi doono naadiga Barcelona ee wadankaasi Spain, balse Blaugrana oo iyadaba la carcaaraysay dhaqaale xumo ayaa awoodi weysay in ay la timaado qiimaha Inter ay dul dhigtay laacibkan. 23 jirkan ayaa sanadkan qayb weyn ka qaatay in kooxdiisa ay hanato Scudetto Talyaaniga, isaga oo shabaqa ku hubsaday 19 gool halka uu caawimadeeda lahaa 11 kale. Martinez ayaa heshiiskiisa ku egyahay ilaa 2023. ma muuqato wada ay Inter xidigan heshiis cusub ku siin karto, maadaama boqolkiiba 20 hoos loo dhigi doono mushaaraadka ciyaartooyda kooxda. Waxayna u muuqataa haatan in ay tahay xilliga ugu wacan ay iimin karto xidigan waa haddii ay doonayso inay sanduuqa ku shubato qiimo sareeya. Achraf Hakimi ayaa ah il kale oo dhaqaale, waxaana suurtagal ah in Inter ay aqbasho dalabyada xidig reer Morocco u imaanaya sanadkan. Real Madrid oo horay Inter ugu iibisay laacibkan ayaa suuragal tahay in dalab 45 milyan ay kasoo gudbiso Hakimi. sidoo kale naadiga PSG ayaa dhankeeda rabta adeega xidiga garabka midig, waxa ayna diyaar u tahay in 25 milyan oo la raaciyo xidiga khadka dhexe ee Paredes ay Inter u soo bandhigto, laakiin kooxda reer Talyaani ayaa doonaysa 60 milyan oo euro. Go'aan adag ayaa sugaya milkiilaha kooxda Inter ee Steven Zan ka oo wajahaya kacdoon taageere, isagoo aan horeyba saameyn fiican ku reebin taageerayaasha kooxda markii laga waayay garoonka naadiga muddo 7 bilood ah inta uusan kasoo qaybgelin dabaaldega naadiga ee sanadkan. Zon ayaa mar kale magaciisa kasoo muuqday boorar ay wateen maalinkii Arbacada taageerayaal ku xumaaday iscasilaada tababare Antonio Conte. Hataaban Antonio qaado mas'uuliyad ama iska bax ayaa ahaa fariin taageerayaasha Inter ay siiyeen milkiilahooda, waxaana qoraalkan uu la mid ahaa mid taageerayaasha kooxda Jiangsu Suning ee ka dhisan horyaalka Shiinaha ay u gudbiyeen isla milkiilahan. Ganacsadahan 29 jirka ah ayaa horaantii sanadkan ka joojiyay maalgelinta kooxda reer Shiina. Tababaraha xiga ee Inter ayaa wajihi doona howl adag maadaama kooxda AC Milan kooxaha AC Milan iyo Juventus ay durbo bilaabeen in ay kooxahooda horumariyaan, halka naadiga caasimada ka dhisan ee Giallorossi Roma ay ku dhawaaqday horaantii bishan in tababare Jose Mourinho uu noqon doono macalinkooda xil ciyaareedkan soo haya. Kursiga laga hagneer Azuri ayaa ah mid soo jiidasho leh, kooxdeeda waxa ay haysataa ciyaartooy wanaagsan oo ku guuleysta koobab iyo taageerayaal xamaasad badan, waxa ayna mardhow u guuri doontaa gurigeeda cusub. balse haatan ka hoos shaqaynta milkiilaha Inter iyo qorshaha kooxda ee suuqa ciyaartooyda sanadkan ayaa ka dhigaya kursiga tababare ee Inter mid ay adag tahay in la saldhigto. taasi ayay ahayd warbixin kooban oo ay kaga daareen xaaladda naadiga Inter. Milan Life ayaa tabinaysa in kooxda Rossoneri iyo naadiga haysta horyaalka Spain ee Atletico Madrid ay qorsheynayaan in suuqa inta uu furan yahay ay ku kala wareegaan 3 ciyaartooy, kuwa ugu horeeyo kabtanka naadiga AC Milan ee Alessio Romagnoli ka oo mustaqbalkiisa cadeen. wakiilka laacibkan ee Mino Raiola ayaa la kulmi doona naadiga Milan si uu uga xaajoodo wax laga sameynayo qandaraaska kabtanka naadiga oo dhamaanaya xil ciyaareedkan ugu soo aadan markuu dhamaado. rajada ah in Milan ay heshiis cusub siiso difaaceeda dhexe ayaa ah mid liidata maadaama Rossoneri aysan diyaar u ahayn in wax yar xitaa ay kordhiso mushaaraadka xidigan ka oo sanadkii qaata lacag gaaraysa 3 milyan iyo bar euro. waxaana wakiilka laacibkan uu doonayaa in Milan ay kor u qaado mushaarkiisa oo ay gaarsiiso ilaa 6 milyan oo euro. Milan ayaa aaminsan dalab qiimihiisa yahay 20 ilaa 25 milyan oo euro
uu ku filnaan karo in ay fasaxaan kaftankooda, waxaana Atletico Madrid xiddigan reer Talyaani qiimeyn ku waday sanadihii dambe iyagoo aaminsanaa inuu bedel u noqon karo daafacooda reer Montenegro ee Stefan Savic iyo kan Uruguayanka ee Jose Maria Jimenez oo ka bixi kara gegada Wanda Metropolitano. sidoo kale kooxda ka dhisan Madrid ayaa qorshaheeda ku darsatay khadka dhexe ee Milan xiddiga reer Spain ee Castello ka oo xil ciyaareed meel dhexe ku qaatay garoonka Giuseppe Meazza. taa beddelkeeda AC Milan ayaa dhiggeeda Atletico Madrid ka doonaysa xiddiga reer Argentina ee Angel Correa ka oo buuxin kara booska uu banaan doono Castello. waxaa saxiixa xiddiga reer Argentina gadaal ka riixaya oo taageero weyn u ah Paolo Maldini, kabtankii hore ee Milan oo haatan jago sare ka haya kooxda Rossoneri. Correa ayaa 9 gool u dhaliyay naadiga xilli ciyaareedka ee dhawaa, waxa uuna caawimadeeda lahaa 11 kale. waxa uuna dhawaan xaqiijiyay in dalabyo hore ay kaga imaadeen naadigan reer Talyaani. haddii Milan ay hesho adeega Argentiniankan, waxa uu tababara Pioli u noqon doonaa muhiim, isaga oo ka ciyaari kara booska nambarka 10aad iyo garabka weerarka. barnaamijka maanta inta inta